masaajkii ugu wacnaa ayaan joogaa another level baabajay hadduu isqaawiyey iyo hadduu siigaystayba baabajay nin fiican ma aha baabajay waxaa la sheegaa inuu yahay nin sixroolo ah oo dadka sixra oo dadka gardaraysta oo dadkii xamar joogay oo dhan sixray aqoon oo maliyadii ma taqaanaan cunug yaroo ismaaciil la dhihi jiray ismaaciil jaceylow wuu sixray xaguu ku dambeeyey yacko wiilkii abgaal ee dhihi jiray lahay looda maanta food macaan malabmaay ku daldalay kii dhihi jiray abgaal away suuquu ka saaray waa sixray curyaankan aad arkaysaan oo lagu hala dadkii nag buu ka dhigay waa kala haatiyey dadki ahey markaad ummadda dhibtid ceebtaada bannaanka imaanaysaa aniga hadday naag isoo wacdaba haddaaba naag inta isoo wacda aan ka qabtaba fiideo waa laga duubo anin dambe haddaan aaminaan ku dhahay yaa laba qof oo dhehaysa walaalkee waa saaxiibka nolosha gabar iyo wiil saaxiib maba naqa karaanbo yaa waa aragteen shiino culo iyo manaalna meeshay ku biyo shubata ma fahanteen marka abti xabiibi oo naga bareejeeye bahbajeey waxuu naqday dumaashi xabiibi oo naqday dumaashi xabiibi oo naqday yaa warwiila taakoowe dumaashigaa maxaa kuu geeyey inaadeere maxaa dumaashigaaga kuu geeyey yaa man inta quruxdaasaa qabtaa maasha allah dumaashigaaga maxaa kuu geeyey walaalayaaloo soomaalida dhib badanaa yaa u soo waramo yaa 2 sano ka hore waxaa la dhahay arrintan waxaa waaye naagtaa ninkan saan uu yeelay intuu kala dhacay mustaqbalkeeda uu ku dheelaa waaw nairobi u geystayo war soomaalida yaa u soo waramo ayaa bane labada qof oo isku dhacda xatee ninkii naagta dee xatee kala caroodaan kaliya waa ogyihiin kaala adigu sheeg waxa uu soo waramaan fahmi laha walaalaal ma sataleeda idinkugu xiran dadka caanka guryahooda korkooda ma sataleed idinkugu xiran yihiin yaa hadda waxaa la yidhi baabajey intaasoo sano soo qarinaya aniga sida xaddi ku maqlay waxaa la yidhi intaasoo sano soo qarinayay arrintan way jirtay waa run marka snapchatkaa la jabsaday xatii xaaskiisa uu ka qarinaya mayna ogeyn snapchatkaa la jabsaday sidii bay sirtii kusoo baxday gabadhii bul waa xanaaqday miskiinta waxaa la dhaha waana xaamilo dhulka isku garaacday baabajey waa degsaday waxaa waaye guri oo filo ah oo 35 kun ka bixiyey dhab lagu siiyey inteeday ku qanacday ma fahanteen idinka xaa idin haayo mug haddee ayadiiba ay ku faraxsantahay ee raalli uga tahay in lala guursado idinka maxaa idin haaya xaa idin riixaya maxaa ummadda iskugu diraysiin yaa maa ilaahay ka baqdiin ma ogtiin guri oo muslim haddii aad dumiso in uu la mid tahay adigoo masaajid dumise yaa arrinta aad soo qoraysiin waxyaalaha reactionka aad ka soo bixinaysiin sida u hadlaysiin waxaa loo baahan yahay in ay ahaato wax aad ka taxadirteen oo carabkaaga inaad cidna ku dhaawicin walaalkaa ah aniga wiilan kuma dhaawacayo gabadhaas kaleetona kuma dhaawacayo labadooda waa iskugu kaymid ilaahayna waxaan leeyahay ha barakeeyo tan kaleeto maxaa la dhihi jiray dadaa waxaa arkaysaa community iska soo qorayaan waxayba afka ka barteenba gabdhihii dhilayay sharmuutayay waxa laysoo qoraya waa la yaaba war waxaan la yaabay gabar kaleeto waxaas u qorayso war waxaas acuudu billah afkaaga inay soo maraan xatee waxaas maaragtay ma wanaagsan haddaa qof dumara tahay inaa waxaa la rabaa xishooto community waxaa laga yaabaa inay wiilal aqriyaan magacaaga arkaan meeshii maalin walba haddaad taagan tahay ma fahanta ka caytimaysid waxaas wax wanaagsan ma ahan anyway come back to the reaction asxaabe waxaa waaye baabajey snapchatkaa laga jabsaday marka waxaan la yaabanaha dadkan ayaga ma kuwaana qaadanayaan miya in boqolaal hore snapchatka intii laga jabsaday oo waxaan ku dhahay walaalaal snapchatna waa qabnaa anaga secretna nooguma jire dadkan secretka ku guranayan maxaa waaye arrintan baranki miya anu waa ka shakiyey asxaabay commentiga igula wadaaga waxay idinla tahay maxaa yeele qofka caanka marka laga jabsado snapchatka secret le soo baxayso muuqaal lay rooraayo waxaa waaye akoonkaa laga jabsada ay yariso war anaga snapkeena haddii la jabsado yaa wax loogu tegaya meesha ma jiraan aanan ka ahayn lug iyo gacan la sawiro iyo derbi gees loo sawiro iyo yaa
waxaa i dareemi karo inta hooyaha i dareemi karto. Anyway walaalahayga waxaa waaye baabajey iyo wiila taako waxaan leenahay hambalyo isku waara abid yaa hay soo dhihina maxaa ugu hambalyeyseen sida dadka caynayay oo hadda waxaan arkaya tiktok muuqaalo laleeyahay way isbahdishay ninkan maxay ku falaya cuuryaanka saan waaye yaa excuse me gabadha uu qabo ma arkin quruxdeeda yaa gabadha uu qabo oo in adeerteed ah oo quruxda badan oo intaas la joogtay oo waxaan ku dhahay maanta waaba nin caana oo maasha Allah waxaystay ilaahay maaragta ka taxdiray shalay yaa asoo waxbaysan ugu soo sawirtay la soo joogtay yaa gabadhaas xagee la adaa ma ili oofay la adaa walaalayaalo maxaa dadka walaalayaalo maxaa niyada uga dilaysiin yaa tan kaleeto qofkan ilaahayga sida ka dhigin oo adiga dhigi karo mugdo ilaahay lugama u weyn waxaan ku dhahay tan kale intuu la ayaa muuqaalka walaa maasha Allah si iskugu quruxsan yihiin iskugu soo baxayaan caadi maahan ani ahaan sa ila taajiija ahaan way isku quruxsan yihiin waan isku soo baxayaan mana ugu talagelin muuqaalka inaan qofna ku dhaawaco sidaa de ani ila tahay daasoo aan u leeyahay hambalyo ma fahanteen marka waa wiil walaalkeeda hogeeyo ayadana waxaa waaye dee maasha Allah waa gabar walaashiisa hogeyso waan u hambalyeynaynaa Soomaali laakiin waxay sheegto waxbaa ka jiro ar Soomaaliyan ka dhashtaa yaa mana qoslin been waay waxaan u maleynayaa 2021 ma ahayd mase 2020 dhamaadkiisa mar baa jirta Nairobi uu aaday oo daawo aaday marka Soomaalidu waxay dhihi jireen gabadhan waxa waaye ninkan xagee geysatay waa saan waaye Bambaasi isla aadeen ba arrintaas waxaan kusoo qaatay macnaha commentiyada hadda muuqaalka qofka soo geliyay ama groupka aan ku jiray ama TikTok aan ku arkay soo geliyay caymuna kusoo qorin just wuxuu kusoo qoray baabajey iyo wiilta ku isguursadeen dadka commentiga ay maxaa waa saan balaayada wabka weyne balaayada saana balaayada ka dhacay balaayada inta ku dhashay aqliga lahayn dameerta walaalaha isku xishooda ilaahay ka baqa dadkana maaragtay caynina caay waxaa maqli jiray hooyadii waxay dhihi jirta caay ribix dil raqiis ma fahanteen marka kelimada caayda ah ma wanaagsano adiga bay ceeb kugu tahay inaad qof walaalka ah oo guri dhistay aad aflagaadeyso foolxumo aad iyo aad u weyn waa runtii haddee doonto ha guursato ninaa qabo haddee doonto ninaa qabin ha guursato tan kale gabadhan wiila leeyahay you think inay dadka waxay u malayn inay dabaal tahay dabaal waa iskaliin gabadhaas gabar ka aqli badan ma jirto ani waxaaba 100% taageero u noqday markii ay maaragtay qadarkeeyo ee life intay u soo kortay ay ka dejinayso sida u hadlayso aragteeno yaa ninka haday dooratana dooqeed ilaahay calaf ugu diray maxaa ka bedeli kartaa waxaa ka bedeli kartaa ma jirto no soo dhaweey ilmaanaha cusub waxaan leenahay nolosha idin wacnaato yaa hore u socda